meesha dhibaato ka dhacday dhibaato laga baaqsan karay baa ka dhacday dhibaatada inaad daydaan oo si wada jiro u dhaydaan idinkoo garowsan ayaa la rabaa qofna anigu dambi kama gelin taa cadow soo kaxeeyay burco iyo hargeysa iyo barbariyo sool ma keenin laakiin sool oo dawladeedu ku duushay baan ugu difaacay Soomaaliland guul baan leeyahay midnimo inoo ballana idina nagama maarantaan anana idin kama maarano akbar Allahu akbar waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo laabtay 6 sano kadib halgan iyo ilduuf dheer kadib inaan ku soo laabtay dalkaygii iyo dadkaygii anigoon magan ahayn marti ahayn oo gabar reer Soomaaliland waxaan salaamayaa marka ugu horeysa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye Yaasiin Xaaji Maxamuud waxaan kaloo salaamayaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheere waxaan salaamayaa golaha dhaqanka Soomaaliland ee madashan taagan waxaan salaamayaa labada gole ee golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxaan salaamayaa haweenka sharafta badan ee reer Soomaaliland ay ugu horeyso dumaashiday inaabtiday ubax dadka reer Soomaaliland waxaan rabaa inaan fariin guud diro aniga warkay wacadiya ninkii beeniga doonayo way rabeenaan been jilow maanta beeniga helmeys gabar reer Soomaaliland ku maqnay tabasho ku maqnay dirqi iyo dulmi dadkeeda lagu sameeyay la kalifay inay tuutaa xirato la kalifay inay duurka u baxdo qof kastoo damiir leh intii uu yeeli lahaa yeeshay dadkeeda u saan tagtay markay saankii ku soo hungowdayna dib ugu soo noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland iimaansatay waxaan cadaynayaa in qof reer Soola oo dambiile aanu jirin in qof deegaanka aan ka dhashay oo dambiile aanu jirin waxaana lagu soo weeraray calankii iyo dastuurkii awooga gudoomiye Faratoon wax ka qoray cashuurtii aanu bixinaynay hubka kiisa mamnuuca ee bulshada rayidka laga mamnuucay bana la dhaca BM kana lagu riday daasado kana lagu riday nooca laga mamnuucay in bulshada rayidka loo adeegsadaan loo adeegsado annagu cashuur bixiyaal cashuurtayada baa saanada noo siistoona lagu laayay maanta cid dhaahinta mudan ee in la bariyo mudan ee ka baa inta afka lagu qaado loo mudani waa annaga qofna kama yeelayno inuu noo arko dambiilayaa wixii dawladda siyaad bare hargeysa barca ka geysatay ee sababtay in gooni goosad aynu ku dhawaaqno oo idinku aad tamanayseen teedii baa na gaadhay oo dawladda aan lahayn naga gaadhay waxaan doonaynaa in hadallada dadka si kala fogeynaya ee naxliga si abuuraya in la joojiyo oo wanaag lagu bedelo anoo fahimaayo cagaf ku aasay dadka deegaankayga waxaan ilaaliyay wax kasto dhan oo cuqdad reebaya inaanay maalmo yeelan maalmihii dagaalku inaanay maalmo yeelan maalmihii xabaal wadareedku inaanay maalmo yeelan maalmihii madaafiicdu idinkana inta inteedii baa la idinka rabaa meesha dhibaato ka dhacday dhibaato laga baaqsan karay baa ka dhacday dhibaatada inaad daydaan oo si wada jiro u dhaydaan idinkoo garowsan ayaa la rabaa qofna anigu dambi kama gelin taa cadow soo kaxeeyay burco iyo hargeysa iyo barbariyo sool ma keenin laakiin sool oo dawladeedu ku duushay baan ugu difaacay Soomaaliland guul baan leeyahay midnimo inoo ballana idina nagama maarantaan anana idin kama maarano waxa la maleegay dabkii koonfur ka baxayay ee Soomaaliya ka baxayay 30 sano ilaa inoo soo raro Soomaaliland loo soo raro deegaanadeena loo soo raro waxa la go'aamiyay 6 milyan oo Soomaaliland degan in xaabo iyo baatrool la isaga dhigo inteena iyo inta kale reer Soomaaliland baa la rabaa midnimo iyo wada jir inaan kaga hortagno ku badbaadin annagu waa sahan tagnay tii 60kii aad aadeen garaad calaha la ayaa garaad aad ku lahaydeen eedin laha ka jooga tiiba saarkeedin hay soo aragna waxaan doonaynaa Soomaaliland ka miisaan weyntan oo ka macna badan inaynu inteenu dib isugu noqono inagoo walaala oo mid oo gacmaha haysaysanna dastuurku dastuur xaafad qura ma aha cidii moodaysay si qaldan u hadlisay Yaasiin Xaaji Maxamuud waa qorayaasha dastuurka anigana waa awowgay 3 sano ka hor laascanood waxa ku soo kala baxnay awowgay Yaasiin iyo mahad baa anigoo ka fikir duwan oo ku saxsanaana marka fikirka iyaguna koodii ay maalinta taagnaayeen waxay kaga saxsanaayeen baa jirtay labadii fikir oo midaysan baan maanta halkan ku taaganaa waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland aqligu ha shaqeeyo cadifada yaana inaga xoog badan sool anigoo fahimaan waxay idin leeyahay dadkaasi hadday cartamaan ayaama inagu qaataan xanaaqaan caytamaan waa in loo dajiyo loo dhibriyo loona garaabo aad iyo aad baan u mahadsantihiin gabar reer Soomaaliland aan ahay martina ma yihi magana ma yihi wad salaamaya dhamaantiin shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka
internetka bilaa aan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25%. Hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya. Shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu sameysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday. Hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaadhan ee lagu sameeyay.